السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale cusub. Saaxiibayaal, qisadeena caaw waxay ka dhacday dalka Suuriya, waxayna ku dhacday wiil lagu magacaabo Maazin Xamdaan. Saaxiibayaal, qisadan waa aragteen bariyahan social media caan ay ka ahayd, haddii ahaan lahayd TikTok, YouTube, Facebook, meel walba waa ka aragteen. iyada ayaa la hadalhayay, waana aragteen sida wiilkan loo galay iyo qisadiisa. dabcan qofkii maqlay wuu maqlay, waa qiso calool hurkeeda murugteeda iska wadata. qofkii qalbi leh ama damqasho lehna ma awoodo wallahi inuu dhageysto ama uu muuqaalada wiilka arko. marka saaxiibayaal, anigan waxaan rabaa in aan caawa qisada ka sheekeeyo. marka saaxiibayaal, qofkii hore u maqlay wuu u maqlay, qofkan maqlayna soo dhawow, aniga ayaa kaaga sheekeynayo, aniga ayaa kaa dabageynaya qisada Maazin Xamdaan, geesigii hiilka waayay. marka saaxiibayaal, koobkeena gacaba soo qaataa, soo dhawaada. Maazin Xamdaan waa wiil Suuriyaan ah. marka saaxiibayaal, waad la socotaan dalkan Suuriya waxaa ka socday dagaalo, kacdoono. marka inta badan waxaa isu kacsanaa dowladii uu hogaaminayay Bashaar al-Asad iyo mucaaradkii. mar walba dadkii in ay soo baxaan, in ay mudaharaad soo qaadaan. marka maalin iyadoo dadkii shacabka mudaharaad ay usoo baxeen, maskiinkan Maazin dadka ayuu ka mid ahaa oo wuxuu usoo baxay mudaharaadka. isagana wax kaloo buuq iyo dagaal ma wadan, mudaharaadka ayuu isaga soo raacay. marka wuxuu watay kaamiro yar, kaamirada ayuu wax isaga sawirnayay mudaharaadkii iyo wixii. adiga mudaharaadka markuu dhammaaday, maalin kale Maazin isagoo meel shah lagu cabaay fadhiyo, isaga iyo 2 qof oo saaxiibadiisa ah. Maazin waa loo imaaday, madax ayaa wax laga geliyay, kadibna waa la waday, waxaa la geeyey xabsi lagu magacaabo Sidnaaya. xabsigan waxaa dhihi karaa wuxuuba ka daran yahay xabsiyada ku yaala Colombia, Mexico iyo guud ahaan Latin. meelahaasaa uga xabsi adag, xabsi waaweyn laysku cadaabayo. laakiin xabsigan Sidnaaya, qofkii arkay ama daawaday muuqaaladiisa, waxaa dhihi karaa waa xabsiga ugu daran hadda adduunyada ku yaala. wixii qarsan ma aqaan, waa xabsi dadka lagu cadaabayo, dadka hilbahooda lagu shiidayo. dadka xabsiga laga soo bixiyey, qaarkooda way waasheen, qaarkooda way iska qoslayaan, qaarkooda waxay ilaaween magacyadooda. weliba midda yaab kale waxay tahay, qaarkooda waxay u maleeyaan ilaa hadda wadanka Ciraaq in uu Saddam Hussein ka talinayo. marka wiilkan Maazin way wadeen, xabsiga ayay geeyeen. marka ugu horeysa ay weji ka fureen, wuxuu dhahay aniga halkee ayaan joogaa. waxay dhaheen waxaa joogtaa xabsiga Sidnaayo. okay, wuxuu dhahay maxaa leega rabaa, maxaa lee soo qabtay. kadib waxay dhaheen maalinta mudaharaadka maxaa ka sameynaysay oo meesha maxaa ka doontay. kadib Maazin wuxuu dhahay aniga caadi mudaharaadka ayaan la socday, wax dhib iyo buuq aan wateen ma jiro. waxay dhaheen aaway hubkii aad wadatay, hubkii maalintaas aad wadatay aaway. wuxuu dhahay dabcan hub waan watay, laakiin hubkeega wuxuu ahaa kaamiradan ana wax isaga sawirnay maahane, hub kaloo aan watay ma jirto. waxay dhaheen hub ayaa wadatay, meesha waxaa u imaatay foodo, dowlad ayaa kasoo horjeedaa. adiga waxay bilaabeen wiilkan inay cadays saaraan oo ayna ku qasbaan dembi uusan isaga gelin. Maazin waxaan wuxuu ka ogyahay malahan, waa qof mudaharaadkan iska raacay, kaamirada iska watay caadi. kadib Maazin markuu sidaa dhahay, waxay ku bilaabeen ciqaab midii ugu darneed. Maazin way qabteen, way garaaceen oo aad iyo aad ay u garaaceen. ciqaabyada ay Maazin marsiyeen waxaa ka mid ahaa, waxay u xireen garbaduub, dhulka ay saan ugu tuureen. kadib waxay bilaabeen in ay ku socdaan, in sida fiiri dhul camal ay ugu socdaan. hore iyo gadaal ayay Maazin ugu soconayeen ilaa Maazin uu feerihiisa ka burburay. macnaa maad haddii adi garbaduub lagugu xiro, kadibna sida dhul oo kale feerahaasay noqonayeen eber, ilaa feerihiisa Maazin xabad ay ugu jabaan. waxay ugu darayaan jirdil kale, in kabahooda ay ku socdaan, weji ay ugu dhuftaan, madaxay ugu istaagaan, ay haraantiyaan, ay garaacaan, korkiisana ay ku socdaan. kadib markay maalin walba sidaa ay ugu wadeen, kadib markay arkeen inuu ninkan feerihiisa burburay, waxay u qaadeen isbitaalka. kadib waxay dhaheen isbitaalka markii magacaaga lagu weydiiyo
saddexda number sheeg. macnaa 3 number ayay u sheegeen, waxay dhaheen wax kale ma sheegay, 3 number sheeg bis. isbitaalkii ayaa la geeyey, xoogaha waa lasoo daaweeyey, haddana waxay dib ugu soo celiyeen xabsiga. kadib waxay dhaheen haye maalintaa meesha maxaa ka sameynaysay, hubkaagana aaway. macnaa su-aashii ay markii hore weydiiyeen ayay haddana dib u weydiiyeen. kadib Maazin wuxuu dhahay aniga meesha waxaan ka doonay ma jirto, hubkaygana kaamiradan ayay ahayd. sidii oo kale haddana cadays ayay saareen, waxay ku khasbeen dembi uusan gelin inuu qirto. marka Maazin markii arkeen inuu hadalkan le ku adkeysanayo, haddana waxay bilaabeen inay cadaabaan. garaacidii hore mid ka daran ayay haddana Maazin garaaceen. markan waxay yeeleen way qabteen, gacmihiis ayay xireen, sidaan ayay dariishada ugu soo lalmiyeen. macnaha dhulka waxay ka qaadeen adiga qiyaas ahaan 40 senti ayay kor u qaadeen, gacmihiisan xirig ayay kor ugu soo xireen. waa qiyaasan kartaa moo qof kor laga soo lalmiyey, dhulkan 40 senti kor loogu qaaday. macnaha xanuunka uu dareemi karo adi iska soo qaad maanta saas dee lagu yeela ka warna xanuunkaas. marka Maazin markuu cabaas sidaa ahaa, wuxuu bilaabay inuu qayli oo aad iyo aad ay u qayliyey. kadib markuu qayliyey, kabtooda ay afka geliyeen. macnaa ha qaylin, maxaa u qaylinaysaa oo kale. subxaan allah, sidaa ayayna ku dayeen ilaa Maazin uu gacmihiisa kala baxo, sanki iyo afkana uu dhiig ka keenay. markay arkeen in uu ninkan tacbaan yahay oo uu sankii afka dhiig ka keenay, xirigii way ka fureen, meel ay saan ugu tuureen, way ka tageen. marka Maazin meesha ay ku tuureen ayaa wuxuu yaalay adiga 48 saac muddo 2 maalin meelahaas oo kale ayuu meesha iska yaalay. maskiinkii markii hore way garaaceen, kor ayay kasoo lalmiyeen, isagoo dhibkaas dhan maray, sankii afka dhiig ka keenay, haddana meesha ayay ku tuureen oo way ka tageen. adiga ugu dambeyn 2014 ilaahay wuxuu suurtageliyey Maazin inuu xabsiga ka baxo oo uu aado dalka Netherland ama Holland, qofba siduu u yaqaano. Maazin markuu meesha aaday, meesha ayuu nolol ka samaystay, halka ayuu iska dhiibay oo uu wuxuu ku biiray qaxootiga meesha ayuu nabad iyo wax ku helay nolol, maasha allah. marka Maazin markuu Holland 2 sano joogay, wuxuu go'aansaday in uu documentary sameeyo ama in uu muuqaal duubo. marka muuqaalka oo ugu sheekeynayo wixii ka soo maray xabsiga Sidnaaya, siday u qaabeen, siday u dilaayeen, adiga dhib iyo dheef wuxuu xabsiga ka soo arkay, wuxuu go'aansaday in uu documentary-gan ku sheego. kadib adiga TV markaas dalkaas la leeyahay ayuu soo wacay, arrintii ayuu u bandhigay, waa laga aqbalay. marka muuqaalka ayuu duubay, muuqaalka ayuuna wax walba ku cadeeyey, reer Bashaar al-Asad sidee yihiin, siday dadka u galaan xabsigaas, waxa lagu hayay ciqaabtiisa, isaga sida loo ciqaabay, adiga wax walba wuu uga hadlay. muuqaal dheer waa dabcan YouTube-kii meelaha waa ka helaysaan. qofkii luqadda carabiga fahmayana wuu dhegeysan karaa, qofkii kale Englishka waxaas ay isku fiican yihiin subtitle ayuu leeyahay. marka qofkii roo faahfaahin dheer muuqaalka soo daawaday insha allah. markuu Maazin muuqaalka duubay oo uu wax walba uga hadlay, marka muuqaalka wuxuu noqday muuqaal qarxa, adduunka dhan ayuu gaaray. marka Bashaar al-Asad ina way ka war heleen muuqaalkan, in uu Maazin muuqaalkan duubay, in uu ka sheekeeyey dhibtii la soo marsiiyey xabsiga Sidnaaya waxyaala. marka waxay arkeen muuqaalkan in uu sumcad xumeynayo dalkooda iyo dowladnimada iyo waxay meesha ku hayaan. macnaa waxay dadka u sheegayaan iyo waxa dalka gudihiisa ka jira in ay lama kala yihiin. markaas waxay la xiriireen Maazin, waxay ku dhaheen dalkaaga dib ugu soo laabo, wax walba anaga ay ku sameynayno, wixii horena waa laga raaligelinayaa. adiga waxay bilaabeen in ay wiilkan sawaan oo ay dhahaan soo laabo, dabcan dhib malaan wixii anaga kaa maslixeynoon iyo waxyaabaha. kadib Maazin arrintaa wuu diiday, sababtoo wuu ogaa dhagartooda iyo khiyaanadooda iyo waxaan ay sheegayaan in ay beentooda tahay. marka wuxuu dhahay aniga meelaan usoo socdo ma lahan. markay raggan arkeen in uu Maazin ka diiday in uu dib usoo laabto, waxay gacanta ku dhigeen qaar ka mid a familkiisa. dabcan Maazin familkiisa, hooyadiisa iyo reerihiisa kulli waxay ku noolaayeen Suuriya, isaga bis ayaa soo baxay. marka sida la sheegay waxay qabteen abtigiisa, walaalkiisa,
aday 4 qof ay qabteen oo qoyska kamid ah way qabteen xabsiga ay geliyeen kadib muuqaal ay duween waxay u direen Maazin marka Maazin waxay dhaheen ma ujeedaa reerkaaga ayaan haysanaa marka waxay dhaheen ama adiga imow ama ciqaabta ogeed mid ka daran reerkaaga ayaa marayo adiga dartaada ayaan u marayaan marka waxay dhaheen reerkaaga waxa aan waa sii deynaynaa ee adiga dib u soo laabo kadib Maazin wuxuu go'aansay inuu dib u soo laabto xitaa wararka waxay sheegayaan Maazin markuu go'aansay inuu dib u soo laabto in ay hooyadii la xiriirtay oo ay dhahday Maazin oo dib u soo laaban wixii dhaco familka anaga hataa hadina la xir ama la baabiyo adiga waxay dib u soo laaban wixii dhacay dhaco ay dhahday wiilkayga dib u soo laaban marka hooyadii waxay dhahday wiilkayga Maazin wuxuu iga balan qaaday in uusan soo laabanaynin laakiin Maazin hadalka uu dhaay wuxuu ku qancinay hooyadiisa oo dalkii ayuu dib ugu soo laabtay Maazin markuu sidaa suuri ugu soo laabtay oo airport ka soo degay isaga dhan waa la waayay oragan ayaa gacanta ku dhigay bis kadib Maazin markay qabteen waxay dib ugu celiyeen xabsigii uu ka soo baxay cadaabkii dhibkii rafaadkii aad ogeed ayuu Maazin dib ugu laabtay wuxuu sidaa u sameynayaan waxay tahay qoyskiisa haddii lagu dhaho maanta qoyskaaga ayaa la haystaa dartaada ayaana loo haystaa ama adiga imo ama qoyskaana u maqan dabcan qofkii insaan ah oo familkiisa u naxay wuu imaanaysid Maazin oo kale Maazin markuu imaaday maskiinkay ciqaabtay ciqaabayeen maahna mid ka daran ay ciqaabeen xitaa markaan xabsiga sidnaay isagoobo xabsi maasha Allah iska oo warkiisa aan dhaweenin haddana waxay geeyeen meelaha ugu daran oo dadka la rabo in zaid loo ciqaabo la geeyo marka Maazin meesha ay u sii gudbiyeen oo meesha ugu ciqaab daran oo dadka la rabo in si fiican loo ciqaabo la geeyo ayay Maazin u wareejiyeen markii hore wuxuu ku jiray meel iska normal ah waa markii firaa la jijibinayay meel ay soo lilminayeen wuxuu ku jiray kulaha meel iska caadi ah marka labaad markay qabteen waxay geeyeen meeshii ugu dambeysay mardhow markii la wareysanayay Maazin hooyadiisa waxay soo warinaysaa in aysan warba ka hayn wiilkeeda inuu soo laabtay laakiin waxay dhahday aniga waxaan waayay wicitaankii wiilkeyga marka hooyadii waxay dhahday wiilkeyga markaan wicitaankiisa waayay uusan ila soo xiriireen waxay dhahday waxaan xaqiiqsaday wiilkeyga in uu dalkii dib ugu soo laabtay uuna xabsigii ku jiro dabcan waxay dhahday hooyo ayaan ahay wax walbaan dareemayaa haddana waxay dhahday waatan ugu dambeyn xabsigan aan ka helnay isagoo meed marka hooyadii way dareensaneed in uu wiilkeeda soo laabtay laakiin maxay qaban kartaa waxay qaban karta ma lahan marka saaxiibayaal wax bayaan hadalka idin dheereen maalmo ka hor waxaan u maleynaa isbuucii hore dhexdiisa dalka Suuriya waxaa la wareegay mucaaradkii oo Bashaar al-Assad iyo dowladdiisii wixiis dhan dalkii way ka carareen dalkii dhan waxaa la wareegay shacabkii iyo mucaaradkii kadib ayaa dadkii dalka la wareegay waxay aadeen xabsiyadii dadka ku xirnaayeen marka xabsiyada waxaa ka mid ahaa xabsigan Sidnaaya marka xabsigaas wuxuu ahaa xabsigii ugu weynaa ku dhawaad waxaa ku xirneed 25,000 oo qofood waa badaysan ka badneen marka waxay bilaabeen inay xabsiyada furaan oo ay dadkii ka soo bixiyaan marka xabsiga dad badan ayaa laga helay dad badan oo meedad ah dad badan oo meedkooda la shiiday dad badan waxaa la sheegaa sariirtii ay saarnaayeen ku dhinteen macnaa ku qaraleen dad kale waxaa laga soo bixiyey oo nool laakiin noloshooda waxay tarta ma lahan sababtoo ah maba ogooba ciday yihiin markii la yaa tahay qofka ma og qofkuu yahay dad waxaa laga soo bixiyey iska qoslaayo sababtoo way waasheen dad kale xabsigaas waxaa laga soo bixiyey oo iska ooynayo ayaga dhan macnaha waxaa la dhihi karaa xabsigaas qof toosana laga soo bixiyey way yar tahay ma fahanti marka dadka waxaa ka mid ahaa wiilkan Maazin Xamaada oo la helay meedkiisa marka wararka qaar waxay sheegayaan meedka in laga helay xabsiga wararka qaar kale waxay sheegayaan in isbitaal oo meesha u dhawaa meedkii laga helay laakiin wararka inta ugu badan waxay isku waafaqeen ama ay u badnaayeen in meedkiisa laga helay xabsiga dhexdiisa marka raggan Maazin caadi maysan u dilin macnaha ma daldalin sidoo kale xabad iyo waxaa kuma aysan dhufan Maazin siday iqaabayeen nafta ayaa ka baxday
xitaa maasin meedkiisa marka la arkay waxaa la arkay in uu labada lug ka go-an yahay. waxaa la arkay meedka maasin in hilibkiisa qayb ka mida ay gooyeen. hilibkiisa macnaa sida in la hoolay oo kale aawe, hilibkiisana in ay hooleen. jirkiisa xubnaha qaar way jarjareen, isaga dhan way jarjareen. horta labada lug way gooyeen, meelaha qaar way jarjareen, hilibkiisna qaar ka mida dusha iyo meelahaasna way hooleen, isaga dhan way hooleen. marka cadaabka iyo ciqaabtaas ay ciqaabayeen ayuu maasin ku dhintay. maana inay soo qabteen ma aysan daldalin ama si dadka loo dilo ma aysan u dilin maasin. maasin aad iyo aad ay u ciqaabeen, subxaan allah. marka maasin markii meedkiisa la helay, macnaha qofkii meedka arkay wejigiisa indhaha xataa ma lagu sii hayn karo. waxawaaye wax aad cawlowr u ah waaye. qofkii arkay ayaa arkay, qofkaan arkin waa sawirkan taamlinka noo saaran oo xoogaa shucaaca ku jiro. sawirkaas waa aniga ma soo dhigi karo, qofkiina waa meelaha kale wuu karaadsan karaa. sida ayaa keentay saaxiibyaa marka in maasin meel kasta loogu hadalhayo, qisadiisa meel walba loogu sheekeeyo. marka maasin isaga qisadiisa in la helo waxaa keentay, marka hore maasin waa laga warhayay in la xiray, xabsigii laga soo daayay, kadib uu aaday Holland la soo daayay. haddaa meelaha kale aa karaya soo arkay sanad 2 sano ka hor, dad badan oo ka sheekeynayo in wiilkan la xiray lasoo daayay Holland uu aaday, kadib Holland uu ka imaaday mar kale ay qabsadeen. intaasna waa laga warhayay, laakiin markuu Holland ka imaaday kadib oo airportkii laga waayay, intaa wixii ka dambeeyay hadalkiis waa la waasnaa. ugu dambeyn waxaa isaga dhan la helay daraad oo markii Suriil qabsanayay, waxaan la helay isagoo meed ah. aad ay u jirdileen oo ay ciqaabeen. marka saaxiibyaal, allah u naxariista maasin iyo dadkii kaloo meesha ku dhintay, allah u naxariisto. dadka hadda ku dhiban dhaawacyada ah, dadka maskaxdooda ku waayay, dadka aanan isxasuusan karin, ilaah subxaanahu watacaala waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo. inta waalatay inuu caafiyo, inta meesha magacooda ku ilaabay inuu ilaahay xusuusto soo celiyo, inta kaloo dhibanna ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhib ka qaado. marka saaxiibayaal, wax bayan hadalka idinku daalin. intaa waxay ahayd sheekadii maasin, waxayna iska ahayd sheeko murugteeda iyo calhurkeeda wadata. marka saaxiibayaal, halkan ayaan kusoo afmeerayaa. inta aynu muuqaalka dib ugu kulmi doono, ammaano alleh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.